Salaams dhammaan. Xaalad aan badanaa laga hadlin ayaa saameyn ku yeelan karta xilliyadaada iyo dhalmadaada. Waxaa loo yaqaan Asherman syndrome. Waxay dhacdaa marka dhagaxda scar ay ka samaysanto gudaha ilmagaleenka, badanaa kadib howlgal sida hysteroscopy ama dingi, taas oo dhici karta kadib miscariyage ama dhalid. Qaliinka section infekshanada ama daaweynta kansarka shucaaca ayaa keeni kara arrintan. Dhagaxyada scar waxay carqaladayn karaan xilliyada iyo uur yeelashada. Calaamadaha qaarkood waxaa ka mid ah xilliyo aan jirin, dhibaatooyinka uur yeelashada, xanuunka belfig, iyo miscariyage soo noqnoqda. Badanaa menopause hore ama cadaadis ayaa loo khaldaa, laakiin waa xaqiiqo. Dhakhaatiirta waxay ku ogaan karaan sawirro sida hysteroscopy iyo saline infusion ultrasound. Waa la daaweyn karaa. Daaweyntu waxay inta badan ku saabsan tahay ka saarista dhagaxyada scar iyadoo la adeegsanayo hysteroscopy. Waxaan isticmaali karnaa balloon si aan u furo ilmagaleenka iyo estrogen si aan u caawino bogsashada. Haweenka waxay dib u heli karaan xilliyadooda iyo dhalmo caafimaad leh. Scarska qaarkood ayaa dhibaatooyin soo noqon kara. Haddii xilliyadaada ay isbedeleen kadib miscariyage, dhalmo ama dinhi, hysteroscopy, infekshan, ama haddii aad isku dayeysay inaad uur yeelato adoon guulaysan, weydii dhakhtarkaaga Asherman syndrome. Waxaad xaq u leedahay jawaabo iyo ikhtiyaaro. Macluumaadka caafimaadka iyo daryeelka haweenka la wadaag.